سؤال حاج ورسم حقوريا بوك ليرا حيان ويلكي غير ميجاها اسمع البوك محك سابسين بوك وحلي هذا هيان سفر كديرة ويلكي غير ميجا وصدعال كي أنت ريبن كسولوجي أنا قلت وانشرة وقال كعيو كسي كذا لكن حمر وصي صعود وأنا ملاين أيو حمر إيه لو جاري كرو أنا قلت سكول روا إن هالك قالوا وتاريخنا رولد كاجمر وتاريخنا رولد إيوه وياها سياسة الصومالية تاريخ عصبية الصومالية تانيو مركي حرية اللقاتي سو صعتي وأن تلتال وسو قاتي لكن أنا سلاحي وحوين بكسو كردينيا سوغانتا إيا تاريخ الصومالي وسوغينا بوغ هيان وكاغا مهدنقينا شيكادان ما كوريسانيا waxay ku saabsan tahay sheeka caan ah oo la yaqaano waa guurkii فاضمو إسلام آذن iyo سيد محمد عبد الله حسن sheekooyinka caanka ah ee gabayga xeen feneen oo lahaa sheekadaas baa mowduucu ku saabsan yahay ismaaciil markuu ugu horeysa sayidku wuxuu caan ku ahaa inuu la xidhiidho ragga sadanooyinka isagoo kala ah ama islaamada iyo suldaamada iyo muxuu ku saabsanaa guurka Faadimo Islaan Aadan iyo Said Maxamed Cabdulla Xasan wasaad u sheegtay horta ninku hadduu boqor yahay ama nin mas'uul oo weyn yahay ama hogaamiye yahay waliba halgan ku jiro taariikheed sida in Cabdulla Xasan wuxuu jecel yahay inuu helo awood ciidan iyo dagaan uu ku nabad galo marka sheekada Faadimo Islaan waxa ka horeeyay dagaalo kharaar oo Islaan Aadan beeshiisu iyo daraawiishta soo dhaxmaday dhowr goobood oo si xun la isugu jabiyay ayaa jiray waxa ka mid ahayd dagaalkii ka dhacay Shadeedle Jiriiban agagaarkeeda oo haddaad xusuustaan gabayga gabay oranayaa jira shaf oo sayidku yiri isagoo ka sheekeynaya dagaalkaas kharaar shafkan nimay xabadu kaga dhacdiyo shiraxa mooyaane wala meel Shadeedle ka kulul lagama sheekay waxa kaloo jiray dagaalo hore oo dhacay oo beesha inta lagu jabiyay ay ka carareen caradii ka hayaameen oo ay aadeen ilaa Itoobiya oo sayidku leeyahay waxa balaglahoodii ka dhacay belada Amxaaraade ka biskoonay mahadkii Baabushalaaye iyadoo taariikhdaas jiray oo ayaa sayidku wuxuu ogaaday in halka cudud xoogan ay ku jirto daraawiishtuna ciidan way u baahnay ilaa nimanka halganka joogtada ku jiray marka sida galaasigada ama caadada lagu yaqaan madaxda noociisaas oo kala ah waxay jecel yihiin inay la xidhiidhaan beelaha ay ka sugayaan culays xoog inuu ku jiro oo ciidankiisa la fadhabar u noqon kara waa sidaas sheekada Faadimo Islaan Aadan ay ku tiri gabadha dabcan haddii isaga codsu ka yimi islaamku odayaal buu u galo fariista dabadeedna si loo adkeeyo xididnimada iyo xaragadii ina Islaan Aadan looga baahnaa ayaa odayaashaasu sayidka ugu tagan xaruntii xaragadii marka sayidka laga codsaday u malayn maayo in yaran laga codsaday laakiin xaragaa laga codsaday xaragadaas waxaa hormood u ahaa faraskii xiin faniin sidaad ogsoon tihiin xiin waa ina finiin horay ayaa beesha u lahayd oo laga soo dhacay sayidka qaaday iyo daraawiishtii si loo soo celiyo faraskaas loona hubiyo sayidka xididnimadiisu inay dhab tahay loona xojeeyo in uu faraskaas bixin karo iyo in kale ayaa xiin faniin ugu horreysay xaragadiina Islaam halkaas markii gabadha la bixinayay oo odayaashii soo gala fadhiisteen aniga aabahay xaaji warsan Axmed Gure Jawjawle oo nin dhalinyaro oo xaafid quraana
kana soo qalin jabeeyey xaruntii hobyo ee Kennedy ayaa xarunta ku sugan markii gabadha xaragada odayaashu ay yimaadeen oo xaragada laga doodayay ayaa aabba oo yara intuu soo garab istaagay odayaashii yiri sayidii xaragada ina islaan kala bar aniga leh sayidkii odayaashii inta isfiiriyeen baa sayidkii yiri oo see ku yeelan wuxuu yiri xaaji warsame oo markaa inaan yar ah run ahaantii laakiin dhiiran wuxuu yiri aniga iyo walaalkay xaaji xuseen mooye reer maadinta kale waa gaalo waa la daatay qosol baa loo daatay sayidkii dasaa u yiri oo soo wiilkayagii maaha joogay xarunta joogay haa buu yiri reer nuurkaygaan doortay buu yiri sayidkii sheekadaas طريقة أنا حيوية مركز طريقة غير كوميرشي روي صالح وي عابد مركز فاضوا الإسلام آذن محل جو أوجي هاي سيدة سيدكم حو يدقوا علامة صلي سيدة شو كان سجاسي أوضعي محل جو ورت السيد كده وهري وأنا قصوا شيء نجوا غير كأنه لحد يدور يسوى حوج يحول بك الدنيا حنفتي هرود أحمر ده يدعى الكنانة إلا هو مركز ده سيدكم أقون فاضوا إسلام آذن كبر بو إسلام كدون sheekada la qariyo aan la ogeyn waxa weeye gabadhaas markii la doonay Faadumo Islaan Aadan waxa la filayay inay ahayd tii curada ahayd laakiin tii curada ahayd ma ahayn to curada waxa la og yahay ama la xaqiijiyay inkastoo sheekada la qariyay inay diiday sayidka oo markii la weydiinay tiri gurigayga aniga dhisanaya dabadeedna islaamkii markii hadalkii lagu celiyay uu yiri gabadhu xor bay tahay marka waxa la filayaa Faadumo Islaan inay tii yaray tahay aysan tii weynayn aysan ahayn sayidku dabeecad uu lahaa gabadha uu guursanayo marka loo soo galo fariisto su'aalu ka weydiin jiray mar hadduu isagu gabadhii arag timaheedu see yihiin dhaxdeedu see tahay gacmaheedu see yihiin kubabkeedu see yihiin xaad ma ku leedahay waxaas ayuu weydiin jiray taasoo ahayd xujo horla oo aad iyo aad looga baqi jiray nimanka u soo gala fariistay inay gabadha bixiyaan iyaga ruuxooda xujaa saaray sida isagaba xujo u saaray ciin baniin inuu bixin kariyo gale Faadumo waxa la yiri caruur ay yeelan sayidka laakiin Faadumo Islaan waxa guursaday laba nin oo kale oo ka dambeeyay sayidka markuu dhintay ragii dambe oo guursaday ninkii ugu horeeyay oo Cali Ilweyn oo nin reer Balbusla ayaa guursaday 3 caruur u dhashay 2 gabdhood iyo wiil waa ninka ay maarta ku magac maamaad ku soo baxday Faadumo Islaan tirisay lugteeray nimba markuu qaad dabadeed Cali Ilweyn ka bacdi waxa guursaday nin la yiraahdo Cabdilla Jibriil oo wiil iyo gabar ay u dhashay intaan ka ogahay Faadumo Islaan taas هذا يا دوما